wadayaal halkaan naga daawanaysaan waa Somali Media waa anigoo ah Sakariya Aadan soo saaraha barnaamijka Cabdi Maalig Askar alaaba dhinacayga waxaa fadhiista wariyaha caanka ee Cabdi Aar tabacaawe barnaamijkan idinayno waxa uu ku saabsan yahay sidaaba ula socotaan ama baad ka dhageysateen raadiyaasha iyo internetkaba waxa North America booqasho ku marayay Garaad Jaamac haddaba 15 bishan ayuu garaadku waxa uu soo caya dhigtay magaalada aynu ku noolnahay garoonka weyn ee International Airport ee Sambol iyo Minneapolis haddaba garaadka ayaa waxa halka ku soo dhaweeyay dad aad u fara badan iyaga oo luxayay caleemo qoyan qaarkoodna ay sideen ubax haddaba garaadku markuu halka yimi ayaa ugu horeyntii waxa ubax guddoonsiiyay Ifraax gabadha loo yaqaan ifka nolosha oo ka tirsan Somali Media waa kan Ifraax oo Garaad Jaamac ubax guddoonsiinaysa daawasho wacan magaalada Minnesota waxaan soo ku soo dhawo dhammaan waxaan ka hadlayaa ubaxa ku sida Soomaalida ku nool Minnesota welcome to garaadka uu ku sugnaa garoonka weyn ee International Airport ayaa maalintaasi waxa uu garoonku kaga duwanaa maalmaha kale sida ula socotaanba garaadku waxa soo dhaweeyay dad aad u fara badan iyagoo ka kala yimi dhammaan gobolada ama nawaaxiga magaalooyinka aynu degannahay oo dhan haddaba garaadka ayaa si aad loo soo dhaweeyay intuusan garaadka ka sii bixin albaabka weyn ee alaboorka ayaa haddana wariyaha Somali Media waa Ifraax ifka nolosha ayaa iyadana waxay ku soo dhaweysay magaalada aynu ku noolnahay erayadeedina waxa kamid ahaa waa kan daawasho wacan waxaan noo yimi garaadkii Soomaaliyeed waxaan u leenahay garaad ku soo dhawo magaalada Minnesota ana u hadlayo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Minnesota garaad waxaan u leenahay garaad welcome ku soo dhawo magaalada Minnesota daawasho wacan sidaad ula socotaan Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac dadka ku nool magaaladan ayaa waxa ay wada sugayaan mar uun inay garaadka arkaan haddaba bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada aynu ku noolnahay ayaa waxay u taagayeen ama ba sugayeenba mar uun in la yiraahdo garaadku waxa uu yimi magaalada waxa uu ka khudbeen doonaa magaalada meel kamid ah haddaba soo dhaweyntii garaadka iyo hotelkii iyo habka loo maamulay bala aan ku soo dhaweeyo soo saaraha barnaamijka Cabdi Maalig Askar waa kan Cabdi Maalig ku soo dhawow Sakariya waxaan u maleynayaa inay aad uga heleen barnaamijkii soo daadahaynayay airportka ee quruxda badnaa sida aad ogtahay Sakariya dad badan ayaa sugayay in uu Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac u yimaado gobolka Minnesota ilaa iyo dad ka badan 17 qofood oo gudi ah oo iskugu jiray dad mas'uuliyiin culimo diin hooyooyin iyo markaasi arday ayay iyagu ku howlanaa baryahan dambaba sidii ay u abaabuli lahaayeen xaflad qurux badan oo lagu sameeyay bartamaha magaalada Minneapolis xafladaasi ayaa waxa lagu metelayay maadaama uu ahaa golo garaad sida aad hore u sheegtay ayaa waxa lagu maamuusayay in hidiga dhaqanka uu ka muuqdo xafladaasi oo si qurux badan hotelka Sheraton Hallka ku yaala ee loo yaqaan ballroomka ayaa waxa lagu goodlay hidiga dhaqamadii iyagoo mararka qaarkoodna aad ka dhaxarki doontaan hadii Allah wada loo ogolaado calankii Soomaaliyeed oo ka dhex babanaya mararka qaarkoodna Soomaalidu aysan ka tagin calanka Mareykanka maadaama aanu joogno waddan Mareykanka si kastaba haatee Sakariya barnaamijka quruxda badan ee laga soo shaqeeyay runtii dad badan ay ku howlanaayeen dhowr habeen qaar ay soo jeedeen sidii markaasi loo soo dhaweyn lahaa Garaad Jaamac Garaad Cali ayaa isagu waxa albaabada loo furay maalintii Sabtida ahaa markay saacadu ahayd 2 duhurnimo shirkaasi oo runtii aad iyo aad dadka halkaasi joogay isugu yimaadeen ayaa qaarkood dadka halkaasi joogay waxay isdhaafsanayeen erayada Soomaaliga ku haboon ee la dhihi lahaa garaad ama la dhihi lahaa markaasi warsuugaan iyo hidiye dhaqan maanta ayay noogu dhowdahay in aanu runtii dhageysano halkaasi kaliya ma ahayn in la iskugu yimaado sida shirarka caadiga ah ee gobolka Minnesota ka dhaca inuu la khudbadeeyo shirkan ayaa isagu kaliya aan sanahayn in markaasi khudbad kaliya u yimaadeen alse lagu maamusay in garaadka markaasi lagu soo dhaweeyo oo halkaasi qada sharaf lagu cuno qadadii ayaa waxa la bilaabay saacadu markay ay ahayd 2 ayaa waxa lagu gaaray ilaa iyo 3 si kastaba ha ahaatee fadhigaasi quruxda badan ee runtii aad arkaysaan ayaa loo kala harin ayaa waxa la sameeyay meel aad u qurux badan oo loogu talagalay in uu fadhiisto Garaad Jaamac Garaad Cali isagoo